الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة ير أو أنا اسكو براروجين إنه مسؤولية دا iyo waxa maanta aad moodo dadka inay ka dhaqan dhigteen oo isaga digno oo dulmiga ah ayaan rabaa oo kalma ah in aan meeshaan aan ka iraahdo waxa la yiraahdo mas'uuliyadu waa wax weyn oo Ilaahay bixiyo cid munaasab ah waana Ilaahay u dhiibaa ma aha wax ku tacalluqa qofku wuxuu jecel yahay iyo sida hadda dad badan ay u fahmaan oo xaysi iyo ku arqaadasho iyo cid iskaga celiyo adigu mas'uuliyad ku doon haddii mas'uuliyadda cidaan mas'uul u ahayn munaasab ay qabato mas'uul kore iyo mas'uul hoose midka rababa ha ahaadee waa waxyaabaha waliba khadiirka oo nabigu ku tilmaamay calaamatul qiyaama waxa nabiga la weydiiyay mata saacada qiyaamadu waa goorma nabigu muxuu yiri idaa diicat al-amaanatu marka amaanada la haleeyo oo la dayaco ayaa qiyaamadii dhacaysa waa mata diicat al-amaanatu baliir goorma amaanada la haleyn idaa usnida al-amru li ghayri ahlihi buu yiri amarka marka loo dhiibo oo loo tiiriyo cidaan munaasab u ahayn mas'uuliyadii marka ay qabtaan cidaan munaasab u ahayn waa sida xadiidka ku cad waxa mar walbaba aad naqlin mas'uuliyad halka ugu sareysa ha noqoto mesela dalka yaga ama qaybaha hoose ha noqotee qofkii oo hadalkiisi iyo fakarkiisi iyo nooca dhaqankiisa ama nooca uu rabo inuu u dhaqmo markaad fiiriso ayaa kugu soo dhacaya xadiidkaas inuu yahay idaa usnida al-amru li ghayri ahli waxay keentaa arintaasu in aan qofkaas mas'uuliyadiisa wax ku keenan la arag oo aasaas ku noqdo waxa hadda nawla maasuq la yiraahdo iyo waxa la yiraahdo maaragtay nin jeclaysiga iyo qashinka iyo hor u socod la'aan inaan wax hore u soconayo la arag mesela markaan soo qaato wadankayaga waaga xorriyada aan qaadanay dad wadaniyadoodu ay tahay meel aan la tilmaami karin baan ahay wax aan wadaniyad ahayn iyo jacayl wadan iyo jacayl Soomaalinimo ma jirin qaabkii mas'uuliyadu ku bilaabatay yaa muxuu noqday qaab qabaa'il iyo waxa ku salaysan eexda ah iyo qabiilka ah waxay keentay 10 sano ayadoo dadkii waliba mas'uulka noqon hayay ay ahaayeen dad wax ku ool u badnaayeen dhagax meel yaal lagama dhiqaadin dhagaxna meel lama dhigin wax ma qaban kaliya ma waxa la oran karaa wax yar iyo wax badan midna lama sameeyo لأنه النظام كيف ما هو كسل اسمه قبائل يا مسوق يا واحد هذا جرو كله هذا يراد واحد مدة رقم كبير ولا مركز في عني مقال ما دخل بعض ودلكم هو هرجيسة رجيه هجان كأهان الريه هرجيسة يبنايه مقال هذا مركز روب كي ماذا لا بيوكل كويس بوندر حياة حتى ملحي وحكوين اسكدا والله سميه كذا الله سميه اسكدا ده كذا الله سميه اسكدا وحوين الله سميه اسكدا مقالada laba ay kala go'aysa hargeysa oo magaalo madaxdiya markii wuxuu aasaas ahaan ay u balaysan yihiin waxay qaban karaan male maanta maad u malaynaysaa ninka baarlamaanka oday gacanta loo laabay baa keena markuu meesha yimaado madaxweynaha wuxuu ku dooranayaa gacan loo laabay ra'iisul wasaaraha wuxuu ku dooranayaa gacan loo laabay hadhow ra'iisul wasaari wuxuu ku ridayaa gacanta wax loogu laabay kan labaad wuxuu ku dooranayaa gacanta loo laabay kan saddexaad wuxuu ku ridayaa gacanta loo laabay wuxuu keeni karaa ayaad u malay naba wax yar iyo wax badan midna ma keeni karo horumar shacabku waa daalim mas'uulkiina waa daalim marka maxaa ka dhashay dalkii kharaab inaan dalkii kicin oo adduunka uu sidaas kula baabao aan wax qabsooma la arag ayaa ka dhalanaysa haddii shacabku fiicnaan lahaa mas'uul fiican baa Ilaahay siin lahaa laakiin markii shacabku xun yahay oo daalim asaga laftiisa gidigii wada yahay waxa la igu yiri jidka sheenuu dhisay oo jawiil ka bilowdo burco ku taga 962 kilomitir weeye waana qaana meelaan calaamaysan kuma taalaalay 960 kilomitir meelaan qof calaamaysan
وادلك هودك أو صلّهين هل كان عليه عريا تابته لما أركو markii shacabkii saas yahay hada mas'uulka lagu salada hayaana waa asagii oo kale haddaan mas'uuliyadda aan mas'uuliyad rasmi ah aanay noqon ee ay noqoto midaas qofkan wuxuu garanaya aan la arag waxa uu sameynaya aan aqoon waxa mas'uuliyadda iyo madaxweynenimada iyo wasiirka iyo baarlamaanka iyo agaasimka la yiraahdo iyo midka ka hooseeya midnaba ma garanayo muxuu yaqaanaa oo kaliya dhaqankan haya dhaqankan maxaa ka dhashay sida maanta taagan baa ka dhalanaysa walgii dalkii inaanu kicin inuu sida ahaado maxaa dheeri noqday saddex ilaahay waxa la yiri cid sameynayso ku halaaga saddex al-makru wan-naksu wal-baghy إنما بغيكم على أنفسكم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ولا يحيق المكر سيء إلا بأهله وحلا واحد ما أنت الصومالي يدك يجي مركز فيرسو صدح ذا سلقوا النقطي كبر يقاق يو إسلوينام بينه أو ظلمه مكر يدقر قفك كلا أو مكرين هيو نكث بالله كم بح صوماليات إلا صومالي وامد حقوق ذا لو ذا اللي مسؤوليات ذا لو ذا بد إلا بري إيه هذا لحالك هري دولة دي بربرتي واحد أي سمايسيا يا إسكاله قف صومالي هو ريا يرى هذاله مركز هذا واحد ربط كسم يسوع أو صاد ربط هذا قشوا حاجاتكم بحسن إيسا أيجينا وبابينا نوا بابا إيسا هذا ما أنت مغليسا تكدي بربرة واحد لسيا إمارات يا إثيوبيا تكدي بوساسود واحد لسيا والصومالي يصدح كون يصدح بقول حب كدر بيلاده حداد واحتريسو عندها له شيء يصدق كان هدسه لكن وحي الشعب كلها أتزولين يصدق واحد مغليسا هذا wax alla wixii dadweyna lahaa fiiri sharciga islaamka wuxuu markay mushtarak noqdaan waa jid waa guri dawladu lahayd waa warshad waa suuq wixii dawladu lahayd oo dadweynaha ka dhaxeeyay shay waxadoo mar noqdo mushtarak la wada yeeshay oo xuquuqiisa la wada leeyahay maanta oo dhan hadaad bixinaysa adoo madaxweynaha qofka aad siisay labada alin baa tiin ma mulkinayo cimriga hadoo boqol dabaq ka dhiso saacad walba in la dumiyaa waajib ah asaguna saacadina ku hayda ma banaana salaadu ku dhex tukanayana waa xaraam oo waa qasb hada waxaad maqlaysaa jidadkii waa dad baa la siiyay warshadii dad baa la siiyay suuq hebel dad baa la siiyay oo dhistay waqooyi iyo bari meel warkaas aad ka maqlay qof kasta oo la siiyay meelaha dawladeed laba ay qaybsadaan meesha la yiraahdo meel dad weyn oo kale waa dhul dawladda u xirnaa wax laga ma dhisin haddii qofkaas dawladdu siiso uu yeelanaya meesha hadday mar noqoto meel dadweynuhu ku wada nafciyay xuquuq mushtaraka ay noqonaysaa wax bani aadan oo bixin kara ma jiro waa jid waa warshadii waa guriga xafiisyada waa suuq toban dabaq hadaad ka dhisto daqiiqad walba in la dumiyaa waajiba adiguna saacad inaad ka hodataa waa xaraam waligaa ma milkinaysid cimrigaa milki kuu noqon mayso waa qasbi inaad toobadaadu ay ku tacalluqdo inaad duuso meesha banayso kii ku siiyay adiga labadaba marka dulmigaas asalka laga dhigtay shacabkii waa daalim mas'uulkii waa daalim maxaa keenay cid aan mas'uuliyadda ehel ahayn ba marka hore mas'uuliyadda loo dhiibaya qofku hadduusan mas'uuliyadda ehel u ahayn natiijada ka dhalanaysa waa taas arrintaas haddaan nahay Soomaali oo shacbiyan aan nahay waxa aabaha waa tacasubka qabiiliga oo xaraamta qarannimadii aan ka hormarino qoomiyadda aan dib ugu noqono war maxaa qofkaanu noo yahay kaliya wuxuu ku yahay inuu ku dhibaateeyo wuxuu ku soo korinayaa ma jiraan 30 sano maxaa la soo korniyay 30 sano oo burburkii dhagax meel ka yaal ma la qaaday ma yaal ma la qaaday ma dhagax meel ma la dhigay ma aan gadaal u noqono marka intii naga dayacantay aan hadeer dib ugu noqono qofka aan mas'uuliyadda u dhiibayno masal baa jira la yiraahdo ataakul litaish am taish litaakul ma waxaad u nooshahay inaad wax cunto mase waxaad wax u cuntaa inaad noolaato day waxaad moodaa dadka maanta mas'uuliyadda intooda badan inay yihiin waxaan u noolahay inaan wax cuno
shilin halka ka qaad halka ka qaad halka ka qaad xagga ka markii hore uu meesha ku yimid war waxaas wax idin ma aha war dadka ummadayada Soomaaliyeed cadaab intii nagu filneed waana soo maray burbur waana soo maray qaranjab waana soo maray qoomiyad la'aan waana soo martay wixii hadda ka dambeeya waryaaya war aan baraarugno aan dib u noqono waryaa wax noo aan dhahno maxaa wax noo ah aan wax dhahno yaa wax noo tarahayaan dhahno haddaysan taas dhicinin ma idin wax alla wax idin meeshaad maanta taalaan meel ka socon maahane meel kale ma gaaraysaa waxaan rabaa inaan kelmadaha ku gooyo Abdullaahi Xaaji yaa boqol guuradii BBC-da la wareystay markaas waxa la yiraahdaa Abdullaahi Xaaji oo maxaa kula darnaa wixii ku soo maray hadalladii ugu adadkaa buu soo qaatay wuxuu yiri waagii dawladda militariga Soomaaliya qabsatay ayaan aad iskugu dayay inaan madaxda la kulmo way ugu adkaatay waadan baan helay buu yiri Maxamed Siyaad waxaan yiri Maxamed Siyaadow intaan su'aalo weydiiyaan oo aad uga cabsan baan markii dambe iribo yiri Maxamed Siyaadow dalkii wax badan baad qabateen oo si fiican baad dalkii wax uga qabateen laakiin koodmaad talada shacabka ku celin doontaa eraygaasaan u dhaxgeliyo yiri si fudud buu wuxuu yiri annaga qofka shaarka uu gashan yahay inuu kaaki yahay inuu cad yahay macna nooma leh laakiin waxa macna noole wax ma qaban haya taasa wax macna noole wax dhabta waata waxa macnuhu yahay qofkan wax ma qaban haya Soomaali ma yahay qarannimada ka hormarin haya waxa kale oo asagu wato haddaydna taa u noqon dulliga ihaanadu wada noqonaysaan dunuubtana wada leedihiin oday walba oo balaayo keeno kaas balaayada keenay hadhow qiyaamada lagu weydiin man sanna sayi'atan falahu wazruha wa wazru man amila alayha la lushka qaata ilaahi ku weydiin arrinto meel waa dhacay ilaahi ku weydiin musuqmaasuqa uu sameeyaa ilaahi ku weydiin adaa keenay Soomaa wax alla waxa uu biyaada ilaahi ku weydiinaya qiyaamo marka ilaahi ka cabsada dadkiisa uga cabsada dalka uga cabsada isirka iyaga Soomaalinimada iyo islaamnimada uga cabsada waraan gadaal u noqono hadaa shacabkiinahay war dhibintii hore ha noo ahaado wixii hadda ka dambeeya maxaa wax noo ah iyo maxaa noo dan aanu noqono ma sha Allah ta'ala aad baan idin salaamayaa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh